taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta gacanta ku soo dhigay gacan ku dhigla dil u geystay xaaskiisii hore taasi oo 3 caruur u dhashay. qoraal ka soo baxay qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa lagu sheegay in gacanta lagu soo dhigay gacan ku dhiglahan. qoraalka ayaa u qornaa sida tan: qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa gacanta ku soo dhigay maanta oo ay taariikhdu tahay 3 bisha shanaad sanadka 2024 abaara 2 duhurnimo iyo qadar 14 daqiiqo ah. eedeysanahan gacan ku dhigla ah ayaa lagu sheegay magaciisa Maxamed Ismaaciil Maame ina Faadumo Sheekh Axmed 44 sano jir ah ku dhashay degmada Waabiri ee gobolka Banaadir kaasi oo dil bariir ah u geystay xaaskiisii hore marxuumad Xabiiba Xuseen Cabdullaahi ina Maryan Cali Bilaal 34 sano jir ah taasi oo hooyo u ahayd caruur tiradoodu ay gaarayso ilaa 3 wiil oo dhalay gacan ku dhiglahan dilka u geystay. hadalka booliska ayaa la sii raaciyay falkan dilka ah waxa loo adeegsaday toorey u watay eedeysanaha waxaana uu ka dhacay deegaanka Garas Baalley waaxda labaad dhinaca Xoosh. ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhiglaha oo isagana dhaawac isu geystay waxaana dhaawiciisa lagu dabiibayaa isbitaalka booliska Madiina waxaana sida ugu dhaqsiyaha badan la horgeey doonaa cadaaladda ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay booliska. hadalka booliska ayaa la sii raaciyay fiiro gaar ah muwaadin haddii aad la kulanto fal ammaanka liddi ku ah la soo xiriir xafiiska gurmadka degdega ah ee 991. kusoo dhawow abka xiisaha badan ee qanciye waxaad ka daawan kartaa filimada Hindiga, Ameerikaanka iyo kuwo kale oo xiiso badan. hadday ahaan lahayd musalsalada Hindiga, Turkida ama Ameerikaanka oo af Soomaali lagu turjumay. waxaan ka marnayn ciyaaraha live-ka ah oo aad ka daawan kartid. iyo waliba TV-yada Soomaalida dhammaantood. ka soo degso dooqaaga oo daawo bilaa internet. rukumo bil ama in ka badan oo hel adeegyadeena. caawin 24 saac 7 maalin ah. degso muuqaalka aad ka heshid HD ku daawo dhammaan aflaanta iyo ciyaaraha. waxaad ku daawan kartaa laptopkaaga, mobilkaaga iyo waliba adigoo ku xiriirsan kara TV-gaaga. haddaba ha moogaan qanciyaha bulshada oo booqo Play Store-ka kuna qor qanciye. qanciye aniga waa qanciyay adiguna ma ku qanciyay.